kulan wacan oo wanaagsan qaarta wada nagala socotaa meel walba joogtaan iyo soo walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibad ba idinka hayno oo halkan idinku soo gudbin doono hadii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorona waxa kamid ah dagaalo lagu halaagsamay oo ka socda xadka deegaanka Tigreega iyo Eritrea ay leeyihiin iyadoo maalmihii ugu dambeysay halkaasi ay dagaalo ka socdeen duqeymo xooggan ay ka wadeen ciidamada cirka ee dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo isgarabsanaya TPLF ayaa waxay soo bandhigeen ciidamo Soomaaliya oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada Soomaaliyeed ee joogay dalka Eritrea iyadoo fadeexad xooggan ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u soo hoyatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xisbiga Dam Mujadid iyo sidoo kale midowga musharaxiinta xilligii ololaha doorashada ayaa ahayd in lagu eedeynayay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka iibsaday ciidamadii Soomaaliyeed ee joogay dalka Eritrea dhinaca dalka Eritrea iyo saaxiibkiisa Abiy Ahmed xogar rasmi ah oo la xiriira arintaasi ayaan idinka haynaa waxaan idin soo gudbin doonaa tirada ciidamada ee Tigreegu ay soo bandhigeen ee ay sheegeen inay ku soo qabteen 24 saac ee ugu dambeeyay dagaaladii ku dhaxmaray ayaga iyo ciidamada Eritrea xadka labadaasi deegaan u dhaxeeya dhinaca kale waxay dagaalo xooggan ka socdaan dhinaca deegaanada Axmaarada Canfarta iyo dhinaca deegaanka Oromia oo iyadana jabhadda xoreynta Oromia ay soo bandhigaysay dhul aad u tiro badan oo ay gacanta ku dhigtay iyo sidoo kale guulo waaweyn oo ay sheegtay inay ka gaadhay dagaaladii ugu dambeeyay ee la gashay ciidamada militariga ee dalka Itoobiya sheegashooyinka jabhadahan soo bandhigista dhulka ay qabsadeen iyo sidoo kale guulahan waaweyn ee ay ku faanayaan ayaa dhinaca dawladdu aysan wax wara ka soo saarin taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya ayaa ka warbixiyay dagaaladii ay la galeen Tigreega wuxuuna ku sheegay in Tigreegu ciidamadoodu xilligii dagaalka u bilaabanayay ay ahaayeen 250,000 askari halka hadda ay dhan yihiin 44,000 askari wuxuuna sheegay intaasoo dhan in dab ay ku shugeen mas'uuliyiinta Tigreega oo dagaaladii lagu laayay dhinaca kale maxaa iska bedelay mowqifkii madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ee maalin ka hor madaxtooyada Jigjiga ay shaacisay inay tagi doonaan degmada Baarey oo ka tirsan gobolka Afdheer iyadoo safarka madaxweynaha laga weeciyay halkaasi walaac weyn oo soo wajahay gobolka Afdheer tabashooyin ay ka qabaan xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar iyo sidoo kale goobaha madaxweynuhu uu tagay iyo waxyaabaha la kala kulmay shacabka oo u diyaar garoobay maalin ka hor soo dhaweynta madaxweynaha iyo sidoo kale duqeyda waxgaradka gobolka Afdheer oo si weyn u sugahayay doonayeen inay ku soo dhaweeyaan degmada Baarey iyadoo ay dhamaanba degmooyinka gobolka Afdheer ay ka tageen duqaasha iyo sidoo kale waxgaradka gobolka Afdheer ayna tageen degmada Baarey oo lagu sugayay halkaasi iyo safarka madaxweynaha oo meelan laga fireynin uu ka dagay waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa dableedii ka tirsanayd ururka argagixisada ee shabaab ee lagu sheegay maalmihii ugu dambeeyay inay ku jiraan buuraha Nogob iyo sidoo kale degmada Ceelkari oo ka tirsan gobolka Afdheer waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay dawladda deegaanka Soomaalida dagaalada lagu halaagsamay ee ka socda gudaha dalka Itoobiya xaaladda si cakirmaysa wada hadallada TPLF iyo dawladda federaalka Itoobiya goobaha ay marahayaan qodobada la isku mari laayahay iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ayaa gabi ahaanba warkeena ku eegaynaa waxaana istuuriyahay gula sugan saaxiibkeen waxaana oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya waxaana soo aad iyo aad baad mahadsantahay Santago haddii aynu ku bilowno TPLF waxay sheegeen in ay gacanta ku hayaan ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliya ka joogay dalka Eritrea ciidamadaasi sanado badan ayay joogaan hawlihii loo geeyay way dhameysteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu booqday xilligii ololihii doorashada uu ku jiray madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu eedeynayay in ciidamadaasi uu ka gatay saaxiibkiisa Abiy Ahmed loona adeegsaday dagaalkii dawladda federaalka Itoobiya ay kula jirtay TPLF bal hadda sheegashadan Tigreegu ay sheegeen in ciidamada halkaasi ku hayaan maxaa ka jira aad iyo aad ba mahadsantahay Santago waxaa isa soo taraya walaac xooggan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka qabto ciidamada ku sugan wadanka Eritrea iyo badqabkooda maalmihii ugu dambeysay warbaahinta Soomaalidu waxay si weyn u hadalhaysay ciidamadaasi iyo sidoo kale qaabka loo adeegsan doono ayadoo booqashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Casmara inay noqotay mid ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacday ama isla markaana dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay halkaasi ammaan weyn ugu soo jeediyeen shacbiga maadaama ay lahayeen ciidamo Soomaaliyeed oo la gatay ma jirin ciidamo Soomaaliyeed oo ka qayb qaatay dagaalka Itoobiya ma jirin gabi ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu halkaasi tagay waxyaabihii dawladdii nabad iyo nolol ay sheegaysa dhamaanba mid runa ayay noqdeen walow xisbiga Dam Mujadid iyo dhamaanba xisbiyadii mucaaradka ee dalka Soomaaliya la tartamay madaxweynaha hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay intooda badan ku kaambeyn garinayeen ciidamadaasi in la gatay isla markaana ay dhamaadeen
waxaa marar badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligii kambeynka ama uu tartamaya ololaha doorashada ee haatan uu ku guuleystay gebi ahaanba uu sheegayay in ciidamadaasi la gatay oo wax ka nool aysan jirin marar badanna uu ku dhaarinayay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo dhammaaday oo ilaa iyo xilligan ahaatanna been noqotay marar badan oo ummadda soomaaliyeed khudbado uu jeedinaya islamarkaana hooyooyinkii caruurtooda loo qaaday ama waalidiinta caruurta joogto ama ciidamada jooga wadanka eritreyaba hooyooyinkii dadkii dhalay ay la kulmeen madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wax raja ah oo u muujiyay ilaa iyo xilligan ma jirto laakiin waagii hore kambeynka xataa waxay dadku sheegayeen inuu lacaga ka qaatay tiro badan oo gaadhaysa 3,000 ilaa iyo 4,000 qofkii raba cunugiisa inuu maqlo ama war keeno ama loo keenaba waxaan arkaynay fadaxadaasina waxay soo baxday xilligii uu ku guuleystay kursiga guud ahaan ciidamadii halkaa ku sugnaa Santiago haatan wadadii maxamed cabdulaahi farmaajo xilligiisii lagu eedeynayay inay ciidamadaasi dagaalka Ethiopia ka qayb qaateen ayay haatan galeen ciidamadiina waxaa soo bandhigay ururka TPLF ayagoo soo bandhigay qayb ka mid ama horin ka mid ciidamadii Soomaaliyeed waxayna sheegeen inay ciidamada Eritreanka ay ka garab dagaalamayeen waxaana lagu soo qabtay koox ka mid dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka ee Tigreeg waxaanu Tigreegu waxa lagu yaqaanaa dad warbaahinta aad dadka wax u bumbuuniya ah isla markaana propagandada iyo isku dirka aad ugu xeel dheer 30 sano ugu dambeeyayna siyaasadda Afrika meel fiican ka gaaray ma la isdhihi karaa warkani waxay doonayaan inay ku kala dilaan dalka Soomaaliya iyo Eritrea oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkiisii uu u tagay ofawarki طبعا waa laga yaabaa laakiin waxaa la arkayay ciidamo Soomaaliyeed oo halkaasi lagu soo bandhigay arintaasi ayaana u noqonaysa marag inay ciidamadan yihiin ciidamadii Soomaaliya ka joogay wadanka Eritrea Santiago arinta ummadda Soomaaliyeed ay isweydiinaysa ayaa waxay tahay maadaama ciidamadan qalabkooda u dhameysan yahay oo loo dhameystiray oo ciidamadan ay yihiin ciidamo u diyaarsan inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab Soomaaliya waxaan ognahay haatan inay ku jirto marxalad aad u adag oo al-shabaab ay dadka xasuuqayaan gowracayaan shacbiga eber laga dhigay la qarxinayo maalin looga baahi badan yahay ciidamada Soomaaliyeedna ma jirto maanta 5,000 askari waxay ka qaban lahayd wax weyn dagaalada ay ku dhamaanayaan shacbiga gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya maxay tahay sababta halkaasi lagu hayo arintaasi waxay ku tusaysaa in ciidamadani ay gebi ahaanba ay yihiin ciidamo loogu talagalay inay Ethiopia badbaadiyaan ee gebi ahaanba ay ahayn ciidamo la rabo inay Soomaaliya wax ka qabtaan arinta taasina waxay marag ka noqonaysaa dagaalka lagu jiro TPLF Soomaaliya maxaa ka galay wax ka galay ma laha TPLF in maanta ciidamo 5,000 oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadan lahaa lana dagaalami lahaa ururka al-shabaab inay maanta TPLF kula dagaalamaan gobolka Tigreega arintaasi waa arin Soomaali aan waxba u qabanaynin Soomaalinimada ama damiirka Soomaalinimeedba oo halkaasi soo galeen inay ciidan meehe hal qof oo shakhsi oo Soomaaliyeed oo gobolka Tigreega naga dhinto maanta Soomaali diyaar oo maaha mana u baahno qofkaasi ku dhimanayo gobolka Tigreega waa inuu ku dhinto furimaha hore ee ururka al-shabaab lagu jiro si loo badbaadiyo qaranka Soomaaliya iyo waliba ummadda Soomaaliyeed oo ognahay in odayaashii 8 jirada 9 jirada ay hubka qaateen oo haatan ay rabaan inay iska dulqaadaan cadawga dhiiga ummadda Soomaaliyeed banaystay ee maalkii iyo waliba muruqii dadka eber ka dhigay waxgaag maxaa ugu dambeeyay dagaaladii halkaasi ka socday xadka Eritrea iyo Tigreega dhinaca kale deegaanka Canfarta iyo sidoo kale deegaanada Wakomara Humera iyo dhamaanba Sakota Arkai deegaanadii deegaanka Axmarada ka tirsanaa ee dagaalada xoogan ay ka socdeen xadka deegaanka Suudaan naftigiisa laguma kala nasanin Suudaan warar ay ka soo saareysay bal maxaa ugu dambeeyay adoo noo soo koobiya gabi ahaanba noo soo dulmaray Santiago aad ba mahadsan tahay waxaa isa soo tarayo in dawladda federaalka iyo waliba ururka TPLF ay wada hadal hordhaca uu furmay arintaas darteedna ay dhabaha u xaadhaysin gabi ahaanba dagaalka la joojiyo laakiin dagaalku haatan waa mid ka sii darayo oo uu sii fidaya xalay ilaa iyo habeen hore waxa lagu dagaalamaya agaarka magaalada Humeyra oo dhinacyadu midba mid kale uu ku xarbinaya sidoo uu qabsan lahaa dhinaca waqooyiga Tigreeg iyo galbeedka Tigreeg dagaal ayaa iyagana ka socda u dhaxeeya ciidamadii huwanta halka ku sugnaa iyo waliba ciidanka deegaanka Tigreeg oo ayaguna raba in iska caabin halka ku sameeyaan duqeynta dawladda federaalka ay waday ee shacbiga Tigreeg ay ku waday iyadana halkeedii ka socdaan guud ahaan xaaladdu way ka sii daraysaa walow dhinacyadu ay sheeganayaan horumaro la taaban karo xooga TPLF ayaa sheegay inay haatan ku sugan yihiin agaarka ama deegaano hoos yimaado degmada Humeyra
oo ay rabaan inay gebi ahaanba cagta mariyaan. dhanka kale gobolka Wakumera asna waxaa ka socda dagaallo xoogan. Suketa waxaan ogeyn inay dowladdu ay dib u qabsatay xooga TPLF na la riixay. dhinaca kale gobolka Wolo iyadana dagaallo xoogan ayaa ka socdo oo ay rabaan inay xooga TPLF halkaasi gebi ahaanba ay qabsadaan. gobolka Wolo waa midka jahayn doona dagaalka ay TPLF iyo dowladda federaalka ay ku jiraan. gobolka Wolo waxaan ogeyn inuu ahaa gobolkii xooga TPLF markay qabsay magaalada Deze iyo weliba Kombolja u sahashay inay caasimadda ay khalkhal geliyaan oo gebi ahaanba duulimaadyadii dalka Ethiopia kuwa internationalka gebi ahaanba la joojiyey oo weliba safaaradaha caalamka ay ku leeyihiin magaalada Addis Ababa ay digniino kala duwan dadkooda u direen oo Mareykanku uu ka dadkiisa daabulitaan uu ku bilaabay. marka xaaladdu waxaad moodaa haddii gobolka Wolo iyo weliba magaalada Humeira ay qabsadaan xooga TPLF waxay jidayn doontaa dagaalkii lagula jiray ama xooga TPLF lagula jiray mid dhammaanba fashil kusoo dhammaaday. dhanka kaleeto Santiago waxaa ka socda guud ahaan dalka Ethiopia qaqabasho iyo weliba xabsi loo taxaabayo dadka loo maleeyo inay yihiin ama loo malaynayo inay yihiin qowmiyadda Tigreega. dhanka kalena waxaa jira ayadana dowlad deegaanka iyo dhammaanba dowlad deegaanada dalka ka socdo qofkii la garan waaya ama loo maleeyo inuu safar yahay ama waddan ku cusub yahay sharcigaad rabto wado xabsiga ayaa lagu taxaabayaa lagaamana hadlinayo ilaa iyo 10 beri 3 beri 4 beri ugu yaraan ayaad ku jiraysaa sifo lagu xaqiijiyo meeshaad ka imaatay backgroundkaada iyo weliba meelaha waxa aad ka qabanaysa gudaha dalka Ethiopia. ka kaleeto dagaaladu haatan way sii fidayaan wada hadaladii qarsoodigaha waa ay socdaan. waxaan ogeyn inay diyaarad ka tagtay magaalada Addis Ababa ay gaadhay magaalada Makale halkaasi oo ka soo qaaday 2 sarkaal oo wada hadalada TPLF oo uga qayb gali doona kuwaasi oo ku sugnaa safaaradda Mareykanka ay ku leeyihiin magaalada Addis Ababa. waxaa iyadana la filayaa inay wada hadaladu ay ka dhacaan waddanka Djibouti walow aan la shaacinin goorta ay dhici doonaan xilliga la qaban doono iyo weliba cidda ka qayb gali doonto dhinaca TPLF dhinaca dowladda iyo weliba dhinaca ergada caalamiga. wagaag dhinaca kale jabhadda xoreynta Oromia waxay sheegeen in ay dhul badan qabsadeen dagaallo xoogan bay wadaan xilli dowladda federaalka ay wada hadal kula jirto Tigray oo kaliya. waxaana la sheegayaa taya ahaan ama aan dhahne tira ahaan in ciidamada jabhadda xoreynta Oromia ay ka badan yihiin dhulka naftirkeeda ay iyadu haysato inaysan Tigrayguba aysan haysanin. bal iyaga maxaa xagga dowladda federaalka uga yaala jabhadan kale ee ay ka mid tahay jabhadda xoreynta Oromia jabhadda Bishangul Gumus iyo sidoo kale jabhadan kale ee gudaha dalka Ethiopia ka dagaalamaya. waxaa si oo dhanba ma aha jabhado yacni laga cabsi qabo inay khalkhal geliyaan amniga dalka marka la fiiriyo TPLF oo saameyn siyaasadeedna ku leh bariga iyo geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka galaangal ku leh dowladaha deeq-bixiyaasha caalamka oo ognahay dhaqaalihii Ethiopia la siinay in loo wareejiyay dhanka TPLF. waxaan ognahay wadamada Mareykanka Ingiriiska iyo weliba wadamadii waaweynaa ee Ethiopia ka kabi jiray bixinta mushaaraadka iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha inay dhammaanba dhaqaalihii iyo wixii la bixinayay weli uu ku dhacayo khasnadaha xooga TPLF iyo gobolka Tigreega. marka Oromadu saameyn xoogan ma laha. waxaan ognahay inay yihiin jabhadda ugu weyn dalka Ethiopia jabhadaha ugu weyn inay ka mid tahay isla markaana ay haysato dhul aad u baaxad weyn oo gebi ahaanba maamulka Oromiyana ay gacan ku haynin dowladana ay gacan ku haynin maalin walbana ay deegaano qabsanayso laakiin sida ay tahay saameyn ma laha la taaban karo haddii la fiiriyo dhan siyaasadeed oo dhanka siyaasadda caalamiga iyo haddii la fiiriyo midda gudahaba. marka dowladdu waxa ay la dagaalamaysa ay rabto gebi ahaanba inay ka dhigto shimbir baala la'aana waa Tigreega oo ay rabto inaysan helin galaangal ururada kaleeta ay ku yeeshaan ururka TPLF iyo weliba in wadamada cadowga dalka Ethiopia oo hubaynaya xooga TPLF inay gebi ahaanba ay baalaha ka rifto. laakiin waxaanu sugaynaa inay xooga TPLF ay qabsadaan magaalada Humeira gobolka Wolo intiisa badan iyo weliba ciidamadan Ola oo qabsado agagaarka magaalada Addis Ababa. taasi ayaadna moodaa inay dowladda Abiy Ahmed ku qasbin doonto in ay gacmaha taagtaan oo ayadana keenayso in wada hadallada iyo waxyaabaha la isku marilaayay gebi ahaanba ay dowladdu ay ka tanaasusho. wagaag dhinaca kale taliyaha ciidamada dalka Ethiopia warbixin ayuu ka bixiyay isla markaana ay la fajaceen Ethiopiaanka fi xisaabta uu isku dhufsaday ayay sidoo kale Tigreegu si weyn u hadal hayaan iyo sidoo kale dadka taageera iyo dowladaha taageeraba. bal taliyahan xisaabta xilligan uu isku dhufsaday xilli wada hadal lagula jiro Tigreega oo loo baahnayn hadal kicin kara jabhadaha iyo sidoo kale Tigreega naftirkooda kicin kara mar labaad
oo wada hadalladan hadda lagu jiro fashirin kara ayuu jeediyey bal muxuu yidhi taliyahan maxaase xilligan kusoo beegay taliyaha waxaad moodaa hadalkiisa iyo afkiisa inuusan midna ku hadlin oo uu ka dhex hadlayey afwaarkii oo daraad aan arkaynay inuu hanjabaad kala duwan ugu jeediyey ururada ka dagaalama dalka Ethiopia guud ahaan ururka TPLF gaar ahaan waxaa jirtay in taliyahan waxaan ognahay dowladda federaalka Ethiopia iyo waliba ururka TPLF inay wada hadal qarsoodi u socdo kaasina laga ilaaliyo gebi ahaanba maadaama wada hadal u socdo hadallada dalqaafka leh iyo waliba hadallada isku kicin kara ururka haatan TPLF ee dagaalamaya iyo waliba dadka ay ka dhex dagaalamayaan waxaan ogeyn in TPLF haddii lala heshiiyo axmaarad dan oguma jirto Eritrea dan oguma jirto waxyaabaha marka kicintan iyo waliba inay dagaaladu sii socdaan waxa ka shaqeynayo waa wadanka Eritrea oo ayagu rabo in gebi ahaanba Ethiopia ay burburto isla markaana ayagu ay armiyaan masiirka dalka Ethiopia looga taliyo magaalada Asmara guud ahaan arintaasi waxa ka qayb qaadanay wadanka Masar Suudaan iyo Soomaaliya iyo waliba wadanka Mareykanka iyo Ingiriiska oo ayagu gebi ahaanba aan rabin Abiy Ahmed nidaamkiisa ka jiro magaalada Addis Ababa oo ay rabaan in ugu dambeyn lagu khasbo dagaalka dalka Ethiopia ka socdo in marka ugu dambayso Abiy Ahmed laga qaada xilka isla markaana loo dhiibo qof ayaga ay u yeeriyaan dhanka kale taliyaha hadalkiisa wuxuu ku soo aadayaa xilli dagaaladu ay socdaan waliba ay goobo aad u tiro badan ay ka socdaan diyaaradaha ay duqeynayaan marka taliyaha hadalkiisa waxaad moodaa inay tahay mid iyadu emlesa oo dadka Ethiopiankana ay arkaan in hadalkaasi 250 bay TPLF wateen haddana 40 baa u soo hadhay arintaasi inay gebi ahaanba ka dhaadhacaynin shacbiga Ethiopia waana arin uu iska dhahay baa dhigi kara taliyaha ugu dambeyntii waxaanu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar wuxuu maalin ka hor madaxtooyada isagu uu ka armiyaaba xafiiskiisa uu shaaciyay degmada Baarey inay tagi doonaan oo ka tirsan gobolka Afdheer hoos degmadii laga xukumayna ah deegaanadii ay dhibaatadu ku dhacday ee ciidamada New Police-ka faraha badan lagu xasuuqay ay tahay degmadii ay hoos imaanayeen deegaanadaasi bal safarkii madaxweynaha ee saaka maxaa bedelay mowqafkiisii hore xageese ka degay ugu dambeyntii adoo noo soo koobaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo shalay ilaa iyo daraad la shaaciyay inuu tagi doono degmada Baarey oo shacbiga degmada Baareyna ay si weyn iskugu diyaarinayeen sidii ay u arki lahaayeen madaxweynahooda dowladda deegaanka Soomaalida maadaama weligiis uun tagin degmada Baarey iyo waliba qaybo kamid ah gobolka Afdheer ayaa maanta waxa uu ka degay degmada Goday halkaasina waxa uu ka soo qaatay diyaarad helicopter waxaana la sheegayaa inuu imaaday Dolowna uu ka sii aaday degmadii Aato oo ka tirsan gobolka Boqol lama sheegin ujeedka iyo waliba sababaha uu tagay degmada Aato xilli shacbigii uu ballan qaaday inuu u tagi doono una arki doono ee degmada Baarey oo ah deegaanada ugu nabadda badan markii la fiiriyo gayiga dowladdeegaanka Soomaalida arintaasi shacbigu aad ay uga calool go'een dowladnimada Mustafa Cagjar oo markii hore dhaliilo kala duwan ay shacbiga gobolka Afdheer ay qabeen ayaa haatan tusaysa danana nacaabka iyo waliba in madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida shacbiga gobolka Afdheer inuu san daacad u hayn isla markaana gacan bidixayntii awal lagu sheegay Mustafa Cagjar inuu ku wado qaar kamid ah gobolada dowladdeegaanka Soomaalida inay si toos ah shacbiga gobolka Afdheer ay u arkeen maantana waxaa noqotay ugu dambeyn intii yarayd Mustafa yani laga qabay rajadahayd inay gebi ahaanba ay ka calool go'een waxayna arintaasi keeni doontaa cadaawad iyo waliba in ururka al-shabaab soo gelitaankooda iyo galaankolkooda ay shacbigii aan ogeyn inay u guntadeen isla markaana iska saareen ururka al-shabaab oo ciidamada la shaqaynayeen inuu haatan calool xumo ku riday arintaasi oo keeni karta isku diritaan iyo waliba shacbigu inay nacaan ciidamada dowladdeegaanka Soomaalida dhinaca kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo muddo 4 sano ah kursiga ku fadhiya ayaa waxaa lagu dhaliilayaa inuu dayacay ammaanka dowladda deegaanka Soomaalida oo sanado badan ay ku naaloonayeen isla markaana ahaa goobta kaliya ama dowladda deegaanka shacabka dowladda deegaanka Soomaalida kuwa kaliya ee garab istaaga ciidamada New Police-ka ee dowladda deegaanka Soomaalida isla markaana qayb ka ahaa ilaalinta ammaanka iyo xasiloonida dowladda deegaanka Soomaalida balse 4 sano ee ugu dambeysay dowladda deegaanka Soomaalida waxaa ku soo badanaysay xaalad amni darro oo ay kamid tahay soo gelitaanka ururka argagixisada ee shabaab ee lagu sheegay ama dagaalada bahsan baa ka wada bishii ugu dambeysay gudaha dowladda deegaanka Soomaalida wali dableydii hubaysnayd waxaa la sheegayaa oo dadka reer guraaga ay noo xaqiijiyeen in ay qaybo kamid ah ku sugan yihiin degmada Ceelkarri oo ka tirsan gobolka Afdheer iyo sidoo kale buuraha Nogob oo ka tirsan gobolka Nogob oo iyadana dowladda deegaanka gudihiisa dhammaanba waxay shacabku la fajacsan yihiin oo hadalhayn weyn ay ka dhalatay soo gaaritaanka ururada argagixisada ay gaadheen degmada Ceelkarri oo ku taala cirifka ugu dambaysa degmooyinka gobolka Afdheer ama
deegaanada gobolka afdheer iyo sidoo kaleeto buuraha nogob oo iyadana gudaha dowlad deegaanka ku taala islamarkaana uba dhowba caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga dadku waxay aad isku wareysanayaan in dadkaasi iyo sidoo kale dableydaasi gudaha soo gashay ay khalkhal gelin karto caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga taasi ayaana inta badan lagu dhaliilahayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida waxaa dhinaca kaleeto madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida dhaliilo weyn loogu soo jeedinayay isagoo beegsi adag ku haya mas-uuliyiinta ka aragti duwan xarigga iyo cuburinta shacabka iyo dadka ka aragti duwan iyadoo aan ognahay in dad mas-uuliyiin aad u tiro badan oo kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ay iskaga qaxeen oo iskaga carareen gudaha dowlad deegaanka soomaalida halka qaarkoodna la sheegay inay xabsiyada ugu ildaran yihiin xukun iyagu aysan mutaysanin madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay in uu dagaal la geli doono goob ka baxsan dowlad deegaanka soomaalida kula geli doono ururada argagixisada balse weli ma muuqato oo madaxweynuhu waxaad moodaa in weli ay dhaliilihii iyo sidoo kaleeto waxyaabihii horeba lagu dhaliilahayay ay sii socoto tan iyo kulantada madawadayaal waxaan idinka tegaynaa ammaan allah